way videogeenan maanta waxaynu ku eegi doonaa sida Facebook Messenger-ka loogu isticmaalo computer-ka. In hore waxaynu ogeyn in shirkadda aanay samayn barnaamijkan Messenger oo moobilada oo kaliya lagu isticmaali jiray Facebook Messenger, balse imika waxay noo suura gelisay inaynu computer-radana ku isticmaalno si fudud inagoo sidii moobilka oo kale ugu isticmaalna oo waxba ka duwanin dibna aan kugu keenaynin. in kugu sii dheerayn maayo hadalka, waxaynu u gudbaynaa sharaxa. soo dhawow mar labaad. marka ugu horeysa waxaad u baahan tahay inaad booqato website-kan Messenger for desktop.com la yiraahdo si aad u soo download garayso barnaamijka. kadib download now baad ku dhufanaysaa, waxaad dooranaysaa operating system-kaagu noocu yahay, haddii uu OS yahay oo Macintosh, Linux iyo Linux 460 bit iyo 200 bit ba, iyo Windows. marka inagu sida caadiga computer baynu waa Windows, aynu ka isticmaalnaa Windows ama 7 ha noqdo ama 10 ha noqdo. kadib waxaa ku soo bixi doona in boxka yaraa ee downloading-ka start download baad ku dhufan doontaa. marka aad download garayso waxaa ku soo bixi doona setup-kan. haddaba waynu ku install garaynaa ee la soco markaa yes baad oranaysaa, sidii caadigeed baad install garanaysaa, install baad oranaysaa. kadib waad sugaysaa inta uu dhammaynayo installation-ka. start Messenger, kadib finish baan leenahay. installation fara badan buu u baahnaa oo labada click oo kaliya. yara sugno inta uu soo kacayo, waqti badan ma qaadanayo. barnaamij yar oo aad u fudud, si fududna aad ku isticmaali karayso. okay, sida uu inoo soo qabteed aragto wuxuu inoo soo qabanayaa emailkii. marka waxaad samaynaysaa halkan waxaad gelinaysaa emailkaagii sidii Facebook-ka caadiga ahayd ayaad u gelinaysaa. kadibna waxaad gelinaysaa halkana password-kaagii Facebook aad ku isticmaalaysay. dabcan intan qof kasta uu garanaya oo waan isla garanayna. Messenger waa laga yaabaa inaan kugu cusbayn hore aad u soo isticmaashay, balse aynu ku soo qaadanno kaliya sida computer-ka loogu isticmaalo. okay, markaad geliso waynu iska sugaynaa. kan noo soo baxay waanu inoo soo dhigay asxaabtii sidii caadiga ahaydna ayaad isticmaalaysaa. halkan waa bartii settings aad barnaamijka tusaale ahaan haddii soondiga codka microphone-ka uu ka off garaysan yahay halkan aad ka on garaynaysaa. desktop notification-kana sidii mobilka oo kale ayaad u samaynaysaa, on garaynaysaa. tan on desktop notification marka on garaynayaa, kadibna dhan baan leeyahay. halkan dabeeto waad ka log out garayn karaysaa hadhow aad baxdo. sidoo kale waad garaaci karaysaa waanaad videogana ku dhufan karaysaa. waxaan filayaa in aad ka faa'iidaysatay darsigan oo uu ku anfacay. haylaawin inaad ka qayb qaadato kanaalkeena si aad u hesho waxa cusub, sidoo kale inaad akhrisato boostooyinka cusub adoo ku biiraya bloggeena Muxtarif, iyo inaad Facebook page-keena ku soo biirto.